kulanti wanaagsan daawadayaal warbixintan waxa aynu ku soo qaadanaynaa daaweynta dabiiciga ah ee kacsi la'aanta ragga. Sida aan horey u soo sheegnay, caafimaadka ayaa muhiim u ah saldhigga nolosha. Isla markaasina waxaa jira dad badan oo doonaya inay ogaadaan cunista cuntooyinka iyo mid kasta faa'iidada ay leedahay. Haddii aad ku cusub tahay, marka hore ka mid noqo saaxiibadeenna. borotiinada laga helo cuntooyinka ay ka midka yihiin hilibka cas sida kalluunka iyo digaaga iyo weliba caanaha iyo farmaajada cad waxa ay sameeyaan hormoono kordhiya kacsiga iyo rabitaanka ragga. dhakhaatiirta caafimaadka ayaa ku talinaya cuntooyinkaas iyo kuwo kale oo aad u fara badan in ay ka qayb qaataan rabitaanka ragga. Vitamin A waxa uu ka mid yahay waxyaabaha aan looga maarmin tamarsiinta habdhiska taranka ragga, isaga oo awood siinaya qanjirka borostaadka iyo xaniinyaha ama qowraha ragga. Waxa uu sidoo kale ka qayb qaataa cusboonaysiinta unugyada dhintay iyo weliba dardargelinta kuwa tabarta daran. Vitamin A-ga ayaa dhakhaatiirtu waxa ay sheegayaan in uu ka buuxo karootada iyo qudaarta inteeda badan. Vitamin B1 isagana waxa uu gacan weyn ka geystaa xoojinta qanjirada taranka iyo firfircoonaynta insiimada qabta shaqooyinka biolojiyeedka ee jirka. Haddii ninka ragga ah uu fitamiinka ku yar yahay, waxaa ku dhici kara tabardarri, rabitaan la'aan iyo xubintiisa taranka oo hoos u raaracda, taas oo gebi ahaanba joojisa rabitaanka xagga dumarka. Vitamin D waxaa loogu yeeraa fitamiinka jinsiga maxaa yeelay waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu waxtarka badan ee lagu daweeyo madhalisnimada. Wuxuu door weyn ka ciyaaraa daryeelka tubooyinka xawada ee ku jira xaniinyaha ragga. Yaraantiisu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu badan ee ragga madhalisnimo ku ridi kara. Vitamin D ayaa dhakhaatiirtu waxa ay sheegayaan in laga helo qudaarta caleenleyda iyo weliba firaleyda sida qamadiga iyo kuwo kale oo lamid ah. cuntooyinka dhakhaatiirtu ay caddeeyeen waxtarkooda waxaa ugu horeeya kuwa caloosha sida ugu dhaqsiyaha badan ugu shiidma, jirkana sida degdega ah uga baxa. Haddaba waxaa jira cuntooyin dhowr ah oo kala duwan kuwaas oo intooda badan ay dadku isticmaalaan laakiin aysan ogeyn faa'iidooyinka gaarka ah ee cuntooyinkaas ay leeyihiin. mowduucan aynu soo qaadanay waxa aan kaga hadlaynaa maanta cuntooyinkaasi aad ka faa'iidada badan u leh iyo waxtarkooda. cuntooyinkaasi ayaa waxaa la ogaaday in ay waxtar weyn u leeyihiin kacsi la'aanta ragga, inta badan qaarkood ay ka cawdaan. Haddii aan ku bilowno cuntooyinkaasi, waxaa ka mid ah kalluunka iyo aargoosatada. waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha borotiinada iyo faytamiinada laga helo kuwaas oo aad u wanaagsan. cuntooyinkan kalluunka iyo aargoosatada ayaa waxaa inta badan laga helaa suuqyada caalamka, gaar ahaan dalka Soomaaliya. Markaad eegto, inta badan suuqyada ku yaala gobolada wadanka Soomaaliya iyo caasimadda ayaa aad looga helaa kalluunka iyo aargoosatada. maxaa yeelay dalka Soomaaliya dhaqaalihiisa waxa uu ku tiirsan yahay wax soo saarka badda. kalluunka iyo aargoosatada ayaa suuqyada magaalada Muqdisho marka aad fiiriso waxa ay ka yihiin kuwa aad raqiis u ah. sidoo kale magaalooyinka ay maraan xeebaha dalka Soomaaliya ayaa aad looga isticmaalaa kalluunka iyo aargoosatada, gaar ahaan magaalooyinka Kismaayo iyo meelo ka mid ah gobolada wadanka, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose oo marka ka mid ah iyo magaalooyin kale oo Puntland, Galmudug iyo meelo kale ka mid ah. waxaana kalluunka iyo aargoosatadu la leeyahay waxa ay qayb weyn ka qaataan daweynta kacsi la'aanta ragga. sidoo kale cuntooyinkaasi ka qayb qaata daweynta kacsi la'aanta ragga waxaa ka mid ah hilibka digaaga iyo ukunta iyo digaaga degdeg bay xiidmaha ugu dhex shiidmaan, sidaas si la mid ah biyaha ama xawada raggana waa ay kordhiyaan. ukunta iyo digaaga ayaa sidoo kale waxa ay ka mid yihiin cuntooyinka sida weyn ay Soomaalida u isticmaalaan, laakiin dad badan ayaa la filayaa in aysan ka warqabin cuntooyinkaasi ukunta iyo digaaga faa'iidooyinka ay leeyihiin. meelo badan oo ka mid ah dalkeena Soomaaliya dadku aad bay u isticmaalaan, laakiin si guud uma wada oga faa'iidooyinkaasi. dhakhaatiirta ayaa ku talinaya haddii qofka kacsi la'aan dabiici ah uu ka cabanayo intii uu isticmaali lahaa daawooyin kiimika ah, waxa uu wanaagsan in hilibka iyo digaaga uu isticmaalo. sidoo kale dhakhaatiirta ayaa waxa ay ku talinayaan in kacsi la'aanta dabiiciga ah ay dawo u tahay hilibka shimbiraha. hilibkooda sida boolanboolada, dagiiranka,
qoleyda iyo hilbaha kale ee shimbiraha ayaa sidoo kale waxaa la ogaaday in ay qayb weyn ay ka qaataan. Hilibkooda waxa uu faa'iido gaar ah u leeyahay bekri jabinta dumarka xilliga guurka, waxaana arrintaasi wadamada bariga dhexe ee carabta laga ogaaday kumanaan sano ka hor. Masaaridu ilaa iyo maanta la joogo qoysaska cusub hilibka shimbiraha unbay isticmaalaan habeenka aqalgalkooda ugu horeeya, waxaana taas ay qayb ka tahay in faa'iidooyin badan ay ku jiraan hilbaha shimbiraha sida boolonboolada, qooleyda iyo shimbiraha kale ee la midka ah. Dhakhaatiirtu ayaa waxa ay sheegayaan haddii qofka uu si joogto ah u isticmaalo toddobaadkii hilibka shimbiraha in ay qayb weyn ay ka qaadanayaan in ay dareen gooni ah ay siiyaan xubinta taranka, taasna ay faa'iido weyn u tahay qofka isticmaalaya, waxaana meesha ka baxaya kacsi la'aanta dabiiciga ah ee qofka ragga uu ka cawdo. Xamuuska ayaa sidoo kale waxaa la ogaaday in uu dawo gaar ah uu u yahay kacsi la'aanta ragga sida dhakhaatiirtu ay sheegayaan. Xamuuska keligii ama isagoo malab lagu iidaamay ayaa faa'iido weyn ay ku jirtaa. Caalimkii weynaa ee la oran jiray Ibnu Sina waxa uu qoray in xamuuska uu kordhiyo raganimada iyo rabitaanka jinsiga. Sidaa darteed waxaa calaf looga dhigi jiray faraska labka ah iyo ratiga kolka la rabo in ay dhadigooda ay abaahiyaan. waxaana sidaasi loo leeyahay waxaa ku jira faa'iidooyin badan oo caafimaad oo fitamiino ah kuwaas oo ka qayb qaata raganimada iyo rabitaanka badan ee jinsiga. waxaana dadkii isticmaali jiray xamuuska iyo isaga oo lagu iidaamay malabka ay sheegeen in faa'iidooyin badan ay ka arkeen. daraasado dhowr ah oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday faa'iidooyinkaasi, waxaana dadkii la wareystay badanaa ay sheegeen in faa'iidooyinkaasi ay ku arkeen. basasha ayaa dhakhaatiirtu waxa ay ogaadeen in xubinta taranka ragga ay kiciso islamarkaasina xawada ay kordhiso ama biyaha ragga. waxaa basasha la sheegay in ay ka buuxaan biyo dabiici ah islamarkaasina ay ku jiraan fitamiino badan kuwaas oo rabitaanka qofka ragga ah aad u kordhiya. balse basasha ceeriinka ah ayaa dhakhaatiirtu ay ku talinayaan in faa'iidooyinka badan ay ka buuxaan. waxaana sidoo kale la sheegayaa basasha la bisleeyey laakiin aan sida weyn biyaha loogu dhex karinin inay faa'iidooyinka gaarka ay leeyihiin. waxaana la sheegayaa haddii qofka dhiban ama caafimaadka raba uu joogteeyo in ay dareen siinayso xubinta taranka ee ragga, waxaana kuleylka yar ee ku jira ay shabaaxisaa baa layiri dhiigga islamarkaasina xaniinyaha ayay usii gudubtaa. sidoo kale miraha timirta ayaa dhakhaatiirtu waxa ay sheegayaan in faa'iidooyin badan ay u leedahay daweynta kacsi la'aanta xubinta taranka. timirta waxaa ku jira fitamiin D, madhalaysnimadana waa ay ka hortagtaa, waxa ayna culimada qaar ay u yaqaanaan fitamiinka taranka. timirta waxa ay nadiifisaa dhiigga islamarkaasina xubnaha taranka ee jirkana waxa ay siisaa firfircooni gaar ah, waxa ay sidoo kale ay ka hortagtaa madhalaysnimada ragga inta badan ku dhaca. laakiin dumarka sidoo kale faa'iido weyn ayaa ugu jira oo haddii ay si joogto ah u isticmaalaan maalin kasta waxa ay firfircooni ay gelinaysaa dareenka qofka dumarka ah, taasna waxa ay tahay faa'iido kale oo dumarku ay u leeyihiin. dhakhaatiirtu sidoo kale waxay sheegayaan timirta faa'iidooyinkaasi gaarka ah inay leeyihiin, laakiin culimada Soomaaliyeed ayaa horey waxa ay u yiraahdeen in timirta ay si gaar ah ay ugu yaqaanaan fitamiinka taranka, waxa ayna ka qayb qaadataa in qofka uu soo saaro xawo badan ama biyo badan, taas oo qayb ka ah koriinshaha. sidoo kale dhakhaatiirtu waxa ay ogaadeen in qudaarta karootada ay qayb weyn ay ka qaadato dawada kacsi la'aanta ragga ay ka cawdaan. waxay gacan ay ka geysataa daaweynta tabardarrida guud ee jirka oo ay ku jirto tan jinsiga. karootada waxa ay qayb weyn ay ka qaadataa sidii ay dareen rabitaan ah ay u gelin lahayd dadka. ka sokow in karootadu ay dawo iyo fitamiin gaar ah ay u tahay indhaha, waxaa jira in jinsiga rabitaan gaar ah ay ku abuurto. waxaana dhakhaatiirtu ay ku talinayaan in dadka isticmaala karootada ay ka rabitaan badan yihiin dadka kale ee aan isticmaalin.
miraha kale ee ka qayb qaata awoodsiinta xubinta taranka waxaa ka mid ah xabad sowdada. xabad sowdada waxaa la ogaaday in ay ka qayb qaadato badinta xawada ama biyaha ragga. sidoo kale waxa ay tahay dabiici. waxaa sidoo kale la sheegayaa haddii la mariyo xubinta taranka ee ragga in ay faa'iido weyn ay u tahay, islamarkaasina firfircooni ay gelin karto. laakiin xabad sowdada oo qur-aanka kariimka lagu sheegay in ay meelo badan ay dawo u tahay, ayaa haddana dadka waxaa lagula talinayaa isticmaalkeeda in ay ka qayb qaadato daweynta kacsi la-aanta ragga. miraha kale ee ka qayb qaata awoodsiinta xubinta taranka waxaa ka mid ah heelka oo ay Soomaalidu shaaha ay ku darsadaan. waxa uu firfircooneeyaa wareegga dhiigga iyo rabitaanka jinsiga ee qofka. waxaa sidoo kale uu qayb weyn ka qaataa ka hortagidda hargabka iyo yaraanshaha qabowga badan ee jirka gala. waxaa sidoo kale firfircooni gaar ah uu geliyaa dhiigga, maadaama biyaha ragga intooda badan dhiigga laga dhex sameeyo. waxaa sidoo kale rabitaan gaar ah ay ku abuuraan heelka jinsiga, waxaana taas ay suuragal weyn ay u tahay in qofka uu xubintiisa taranka ay noqoto mid aad u adag. sacfaraanka ayaa sidoo kale dhaqaatiirtu waxa ay sheegayaan in ay kaalin weyn ay ka qaataan. ubaxa sacfaraanka waxaa ku jira maadooyin kordhiya awoodda jinsiga ee dadka, gaar ahaan ragga. waxaana inta badan dadku ay sheegaan in ubaxa sacfaraanka uu ka qayb qaato rabitaan degdeg ah qofka inuu geliyo. waxaana inta badan la cunaa ama dhaqaatiirtu ay ku talinayaan in la isticmaalo xilliga hore ee subaxii ama gelinka hore. lowska ayaa dhaqaatiirtu sidoo kale waxa ay sheegaan in ay tahay mid ka mid ah waxyaabaha cuntooyinka ah ee ka qayb qaata daweynta kacsi la-aanta ragga. lowska ama fuul suudaaniga isaga waxaa lagula tartameeyey kordhinta tirada iyo tayada xawada ama biyaha ragga, iyada oo weliba intaas ay u dheer tahay dareensiinta xubinta taranka ee ragga iyo weliba inay kordhiso culayska xubinta taranka ee ragga. waxaa inta badan dadka lagula taliyaa in xilliga hore ee subaxii ay isticmaalaan. lowska waxa ay dhaqaatiirtu ay sheegeen in ay tayo gaar ah ay u yeesho xawada ragga, islamarkaasina miisaanka xubinta taranka ee ragga ay wax ku kordhiso. dhinaca kale dhaqaatiirtu waxa ay sheegayaan in sanjabiilku uu yahay mid ka mid ah dawooyinka kacsi la-aanta ragga. sanjabiilku ayaa dhaqaatiirtu waxa ay sheegaan in saxarada uu adkeeyo, islamarkaasina caloosha uu jilciyo. waxa uu si gaar ah uu ugu fiican yahay ragga cimrigooda uu aadka u sareeyo. dhaqaatiir iyo cilmi baarayaal ayaa sheegay dadka iyagoo dhalinyarada ah bilaabay cunista sanjabiilka in ay yihiin kuwo marka da-dooda ay ka sareyso 70 sano weli xaasaskooda u galmoon kara, iyagoo weliba si caadi ah ugu galmoonaya. waxa ay dhaqaatiirtu ay ku talinayaan in sanjabiilka cunistiisa oo la badiyaahi ay faa'iidooyin aad u fara badan ay ku jiraan. ugu dambeyntii dhaqaatiirtu waxa ay sheegeen in cabitaanada qaar ay yihiin kuwa ka qayb qaata awoodsiinta xubinta taranka ee ragga. cabitaano qaar baa jira kuwaas oo kordhiya xawada ama biyaha ragga mar walba oo uu ninku cabaahi kacsi uu la miirbeelayo. waxaana ugu horeeya qarfaha iyo xulbada oo cabitaan ahaan loo isticmaalo maalin walba. inkastoo dhaqaatiirtu ay faa'iidooyinka xulbada iyo qarfaha ay sheegeen, haddana waxaa jira daweynta dabiiciga ah ee kacsi la-aanta in ay u yihiin waxa ugu horeeya. haddaba daawade, adiga oo aan isku lacag beelinin dhaqaatiir iyo weliba dawooyin kiimika ah, haddii aad intan aan kuu soo sheegay aad isticmaasho, waxa ay dhaqaatiirtu ay leeyihiin qofkaasi waxa uu ka dawoowayaa kacsi la-aanta dabiiciga ah ee uu ka cabanayo.